goormay ammaanadu dayacantay marka loo tiiriyo buu nabigu yidhi idaa usida alamru ilaa hayri ahli ammaanadu waxay dayacantay marka maamulka loo dhiibo cid aan u cuntamin alamaana waa shardi inkastoo soomaalidu maahmaahaan ka maqlayba waxaa ka mid ah ninkay adhiga kala quustaan bay geela u dirtaan baa la yidhi ilmahay adhiga markuu kasii daayo la yidhaha geela ha lagu daro geelii baana labada ku qaalisanaa agtooda kay dhiiji kala quusataa bay tidhaha wasiira laga dhigo kay daraad wasiirka kala quusatay berrinta madaxweynaha u dooratay iyo wasiirnimada waa shaakiladay hawdka kala timi ee ahaa adhiga kaka adkaan kari waaya geela ha raacdi u weeyaan alamaana qadiya bay ahayd macruufa oo qofka mu'minka uu ku xisaabtamo oo ah qofku inaanu wax qaban karin in ammaanadiisa la hubiyo mooyaane 40kii ninkii la ogaaday inuu khaayinka ahaa ee 50kii la ogaaday inuu khaayin ahaa ee 60kii la ogaaday inuu khaayiyay ee 70kii la ogaaday inuu khaayiyay ee 80kii la ogaaday inuu khaayiyay ayaa 90kii hadana loo dhiibaya ma hada dadku ma maskaxda ka tirsan maya almafahim siyasiya almaalim siyasiya alislaamiya ayaa ghaaiba cinda al-umma ayaan jooginba dadkaan garanaynba cid ay dooran lahaayeen dadkaan garanaynba cidda wax loo dhiibayo waa inaan gartaa intaanan sanduuq al-iqtiraac wax ku ridin sanduuqa wax lagu foodeeyo intaan la odhan dimuqraadiyad way waafooday ku soo rid waa inaan gartaa waxa wax lagu doorto criteria waa inuu yacdi maxaan qofka ku qiimeynaya maxaan ku dooranaya markaan maxay ka helaabaan u baahnay inaan ugu rido ilaa markhaatigan ilaahay bay weydiinaya qiyaamaha waa markhaato ilaahay bay weydiinaya waa inaan gartaa waxaan wax ku qiimeynayo si aan wax u doorto umma jaahilana ma garata waxay wax ku qiimaysa inay tiraa waa nala reer mooyaane ama waa nala qoys ama waa nala caynkan mooyaane waxaan leenahay marka ammaanadu waa shay asaasi ah